عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. صدق الله العظيم. أنا يدعو صوت الشيء حولها أن كلوا إنه كنا قندونا بحساك الدعي يأسانتي مس يقود مدح شبير لفتي ونوصل نقولي وجدا كلا هاي أيضا دواد قرن ساسي كسود دكتي dadka islaamkaan la hadlayaa soomaalida ee islaamka waxaan arkaa alla caqliga ha u soo celiyee nimankaa tolkeena ee wareeray dhammaantood kama hadlayo niman wadaada oo wanaagsan iyo dad badan oo wanaagsan oo waxaan ka soo horjeedaa way jiraan oo dee qaar baaba u xidhan marka uu haliilaya in Ibrahim Accord saxeexaan waqtigii rasuulkiiba way timid tan oo kale ujeedada dhan waxa weeyaan adigana taada waan kula caabidi adiguna tayda ila caabud saddexdii diimood Christianity Judaismkii Jewshkii iyo Islaamkii iyo la rabaa in meel la isugu keeno ninkii wax kala garanaya oo markay rasuulka kufaartu u tumiday tiri marna adiga taadaan kula caabudno adiguna taayada nala caabud jawaabtii ilaahay siiyey wataa dad badani may fahmaan oo waxay ku odhanayaan lakum diinukum waliya diin intaa unbay ma garanaysa laakiin dhuuxa horta diin aan muslim ahayn ama islaam ahayn ma jirto adduunka جين يا توراد إلهي بسود جين كستوي بدلين لكن مركي كتاب كقرآن كوي مدي سود دقي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل سود دقي على فصح مرها الدين عن دين الإسلام كهيني مجرته تأتي إبراهيم أكوركا سهيرا إسلام مدينة يكبح ذها وهذان يأتي رالكا يأتي أركا يسددكا هلوصن كجوجين ويدا يكو سيد بس صعدا وأنا قاعدي سيكون باب قراعي باب كي نار تالا فري أنا أقول أرتسك دبكاني إذا ريهوا وعقل ميدا إذا وحا ويسوى الدبا السودان توه الرئيسة هدي جر كدعضو تكويك تورون ميسو ورجر باجري ميسو كجوك سدا ويسكا وضا الدبا داعيان إلا هكا كودا ماذا markaa gadabuursi anu kama hadlayo dhalinyarada iyo dadka culimada ka hadashay iyo dadka ka soo horjeeda kama hadlayo laakiin duuna qaatayaasha sidii odaygii baad oo kale markii yahuudigu hadlay lahaa allahu akbar ee muraaqoonay daadeed ku gaalowday baadow adiga uun maaha wax alla waxa ku jira ee waxaan raalli ka
dhammaantood iyo kii kale lahaa anigu baktiga ma cune fuudkiisaan cabaa kii lahaa yuhuudda anigu waa nacebahay laakiin aqoonsiga waan ogolahay iyo ibraahim koortka الدول تادت كو قالوا ذينا سبحان الله عبد الرحمن عراق عنته نقبتيه الباب كي عذابتي لقى فريبين وياب marka waxaan u sheegayaa nimanka tolkeena isaaq ee wareeray dhammaantood ma kii wanaagsan waa wanaagsan war ilaahayna u soo noqda afartan tuuge markii horena dagaalkayni geliyey ee waddankiinii inaga dumiyey ee ini qaxiyey haddana cadaabtii bay nii wadaan kuwii siyaad barre la shaqaysanayey ee cira ka mid ahaa moosku joogay maalintii siyaad barre ka baxayay uu shaqaynayay iminkana albaabkii cadaabtuu inaga furay dee ku wada daata haddii kalena ilaahiina u soo noqdo waxaan iskaga baxa kuwa intaasaa leh sababtaan aayaddaa u daliishadana waa intaa wax cusub maaha markay kufaartii iyo yuhuuddu lahaa inta ayadaa nala caabud annaguna waa kula caabudaynaa waa similar there is no different qul yaa ayuha alkaafiruun maxamedow rasuulullah calayhi salaatu wasalaam leh yaa ayuha alkaafiruun halkaasay ku kala hadhay soo ma arkaysa laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabuduuna maa acbud walaa ana caabudun maa cabadtum walaa antum caabuduuna maa acbuduun lakum diinakum waliya diin waayo dad madax adag bay haayeen waa la ogyahay ilaahay wuu kaa yaqaanaa isaga abuuray dadkan kun jeer horay ku caasiyeen qof walba waxaad isweydiisaa imisaad noolaan kartaa kaba soo qaad kii lahaa aakhira waa yeelkeed 80 jir kama yara imisuu sii noolaan karaa albaabkiina uu sii ballaqanyo waa la sugayayo عذاب القبر جي وحيون الروي how old are you سبحان الله أصلين عيالكي لها إسلامي سبحان قبسنا يهودا ورقد وقرت دينت إسلام كان لدى عالم يالها هرتا الله نحرستو لكن I'm wondering where is he at now? Is he in hell? I don't know. Ilaahay baa garanaya. Waxba intaa u dhaafi maayo. waxaynu ka hadli doonaa qodobka intaasan waayo dadkan halaabayo waa dad islaam ah waa in wax loo sheega waa lagu goynayaa une wax shaqaynayaana ma jirto wixiiba way iska soo xidhmeen warar aan helaynaa waxay noo sheegayaan inuu Dubai joogo ero anu garan maayo dee awalba waa kii airportka ka dhoofi jiray bamboyda sii kaxaysan jiray ma garanaysaa kii kale maxamed caliguna sii salaami jiray wuxuu la dhuudhuumanaya lama garanayo idina wax ku fali mayso haddii la rabo in la dilo adigoo halkaa fadhiyaa lagugu dili karaa oo quurinaya oo hurdadeeda intaa hurdadii intaa soo jeedo intaa hurdaa badanay markaad intaa kursiga ku fadhido waa hurdaay Dubai buu joogaa
talaabiibna waa loo diiday inuu tago saan wararku nagu soo gaarayaan waxaa loo soo diray law delegation kuwa ka socda sirdoonka Mossad iyo dad iska hooseeya iyaguna waxay ku darsadeen Indiana way ka soo qayb gashay shirka India soo tiinii sheegtay in 3 war anu in ma aqoonsanay miidan quusan iyo wadamo kale iyo bay ku oranayaan bahashan been miidan ka daarin maalinta halganka beenta bilowdeen ilmihii dhashay waa konton jir maanta noloshiinaba ma been miidan ka korayn boodeen ka aqliyeysanayn noloshiinaba waxa ku dhamaysanaysaan been talabaad rasuulkuna waa kii sheegay in beenaha ummadeydaba ka mid maaha subxaanallah imikana de waxbaad ku darsatay yuudnimo wayaab soomaaliyey u duceeya inta ka waalata reer Sheekh Isaaq oo majority-ga war u duceeya inuu ilaahay toobada yana ifi aakhiraba labadaba seegne waa dad sidooda kale aad u wanaagsan laakiin waa la waalay waxoogaa ma garanaysaa culture-ina uu jiraayo awalba iska yargaala jeclaaya waa kuwii the only Somali garabka ku qaada gaal xaar leh on istijoonin iyagun ba hayn cid kale ma hayn meel kale kaniisada kama dhisna Hargeysa berberahayn ilaahay noo soo noqda ayaga maaha waa reality-ga yaala idinkun baa soo dhigay halkaa oo ku faanayay iyadoo la iswaraysanayo maxay idhahdaan xogogaal buu ahaa barnaamijka ay Hargeysa ku sameeyaan ninka waxaynkaas mise xaqiiq raadis waxaynkaas ilaa ay soo saareen kii barasaabka meesha ka ahaa iyo islaantiisii ku sidaan laxash subxaanallah ilaa iyo sheekh weliba subxaanallah de annaga waxaa naga dhammaaday dadkii dignity-ga lahaa dhalinyarada dambe ma kama hadlayo kuwa caada qaatayaala iyo odayaal noo noqday iyo hoggaan oo immorala dhammaantood isku dar caada qaatayaashaa noo ah laakiin beri dhow way iska dhammaani dee hadduu way wada gaboobeen xaaraan bay ka dhargeen dhiiggii carruurtooday mar walba masruuf ka dhigtaan alla nasiib daro marka waa nasiib darooyinka annaga na haysta waa kuwa dee cira gacanta ayee albaabkii cadaabtee laga furay kaayagii ugu weynaa uu la galayo hadduuna ka toobad keenin 90 uu dhaafay hadduuna 100 dhaafin waa baada waxaan sheegaya markii la yidhi yuhuud baa wax aqoonsatay maxaa aqoonsani iyadii baa wax aqoonsada raadinaya shir baa ka socda
Sweden ma ahayd somewhere in Scandinavian ka dhaqaalaha adduunka lagaga hadlayay. He couldn't even go there. Ma tegi karayo. Waa la xidhi hadduu tago. Kaasayna aqoonsada Soomaali genocide ka sameeyay afka iyo ilkaha iyo lugaha iyo meel walba dhiigu ka daayay. Dhiigii Islaamku. Ya subhanallah. Haba ku dheeraan maayo. Adduunyadii oo dhan baa aragtay. Waxaa igaga daran. Xidhan Talaabiib buu joogay. Ibraahim koorkii buu soo saxeexaya. Waxaa kaloo ka sii daran. Garan mayno muu lugeeye. Bajaaj baa lagu qaaday intii laga tallaabinayay ilaa iyo xadka Ethiopia. Waxaa kaaga daran waxay yidhahdeen diyaaradihii Yuhuudda F-16 iyo F-35 diyaaradaha lagu arkaa leeyahay shalay iyo daraad iyo Hargeysa iyo meelaha berberay isaga ilaalinaya. Wani markaad been sheegaysaan been runta u dhow sheega wax laynaga aad ku mormi kartaan. Do you guys know how far is from Hargeysa to Jerusalem? Intay jirto soo ma ogidin. Markay Yaman soo weerarayaan oo weliba xaggaa inaga sii xigtay ilaa 500 kilomitir meelaha. Air tanks baa la kiciyaa Maraykanku leeyahay. Markay dhexda soo marayaan waa la soo buuxiyaa hawaday ku qaataan gaaska. Markay sii socdaanna waa la buuxiyaa haddana. Waa operation weyn ma waa ciyaara. Waad ka hadashaan una ma fikirtaan isma weydiisaan how can be possible. Waxaan isla ku suura galeen xitaa isma weydiisaan. Waxoo dhan baa been iyo khiyaamo iyo nacayb iyo wax ku dhisan. Carruurtii dumarkana lagu oohinaya mar walba. Markuu ilmuhu soo dhashaa lagu abuurayaa xumaan iyo Soomaali nacayb iyo subhanallah. Waxaan jirin looga sheekeynayo. wararkana soo gaaraya waxay odhanayaan waqtiina in treaty la kala saxeexday Soomaaliya iyo kastoo nacab ahay ninka xamar joogay waxaan oo dhan ka xun yahay laakiin Soomaalinimada isaga uga biximeen iyo wixii la midaba Turkigu wuxuu saxeexay inuu mas'uul ka yahay uu ilaalinayo badaha Soomaaliya diyaaradii Turkiga xamarna way ka soo kaceen marka haddaad been sheegaysaan been runta u dhow sheega saad ugu murantaan adliis intaasaan taa ku xidhaya saaka dagaal baa ka dhacay Indabiraale waa meeshii labada nin jimcihii hore lagu dilay too la aftuubay dad musaafura lagu dilay
anigu waan u sii sheegay you can go back waqti dheer ma ahayn markii imika waxaani bilaabmeen shiniile iyo dirdhabiya ka soo hadlayeen shaciyo anigoo talo wanaagsan siinaya iyagu kolleyba de waxay u arkayeen way wanaagba uguma badiso